kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada ku xiran barteena YouTube ee Galka Media waxaan warbixinteena maanta Galka Media diiradda ku saari doonaa farmaajo iyo Dani oo isbahaysi cusub sameystay jabka mucaaradka maxaad xilligan kala socotaa qorshayaasha ku hoos joogan musharaxnimada Saciid Cabdullaahi Dani farmaajo rajo inta in leeg ayuu ka leeyahay in mar kale uu ku hogaamiyo dadka talada dalka ugu sareysa ee madaxtinimada waxaan idin haynaa xog culus oo ay heshay Galka Media balse marka hore haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir barteena YouTube ee Galka Media sidoo kale warbixintan la sii wadaag saaxiibadaada kale si ay u noqoto mid saameyn badan inaguna ay inoogu noqoto dhiirigelin waa tahay madaxweyne farmaajo oo dhowaan tagay wadanka Qatar kana soo laabtay ayaa la xaqiijiyay in uu markaasi la soo baxay qorsho cajiib ah taas oo ah in Dani ay markaa musharaxnimadiisa ka dhigan tahay isbahaysi ay sameysteen waxaana xilligan jab culus uu soo gaaray dhinacyada mucaaradka oo warkan iyagu markaa si lama filaan ah u helay ayaa waxa ay markaa ku noqotay qalbi jab iyo waliba niyad jab aad u weyn oo soo wajahay labadii madaxweyne ee dalka hore u soo maamushay Sheekh Shariif iyo waliba Xasan Sheekh Maxamuud oo iyagu xilligan mar kale ilqul daraynaya inay talada dalka mar kale majaraha u qabtaan xogaha la helayo ayaa sidoo kale waxa ay markaa tibaaxayaan in guud ahaanba xilligan ciidamada iyo waliba dhanka iyo waliba sida laga soo xigtay Dani uu xilligan markaa musharaxnimadiisa ay ka dhigan tahay in saami qaybsiga xilligan beelaha uusan iyagu dhaafin halka farmaajana qorshahaasi la aaminsan yahay in si weyn ugu ololeynayo xaalka waxa uu taagan yahay in dhinacyada mucaaradka oo iyagu markaa isku hayb ah amaba hal beel ka soo jeeda xilligan iyagu ay markaa u muuqato in dhinacyada si beel ahaan loogu tashtay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo maalmihii dambe isagu markaa sameysanayo kudlado xildhibaano waxa la aaminsan yahay in arrinkiisa ugu weyn ay tahay in saami qaybsiga beesha markaa uu ka soo jeedo madaxweyne farmaajo iyo isaguba aysan dhaafin marka loo fiiriyo dhinaca saami qaybsiga ee dalka madaxweyne farmaajo waxaa markaa la soo wariyay in qorshahan uu isagu markaa si weyn ugu taageersan yahay soo jeedintan ka timid madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani talada haddii ay mar naga baxdo nagu soo noqon mayso balse waxa aan markaa agdhigaynaa nafta ayuu yiri Saciid Cabdullaahi Dani oo laga soo xigtay inuu markaa qadka telefoonka kula xiriiray madaxweyne farmaajo qorshayaasha xilligan ku hoos duugan ayaa la soo wariyay in guud ahaanba arrinkan markaa looga gol leeyahay in saami qaybsiga markaa beesha uu ka soo jeedo ama beelaha ay ka soo jeedaan Saciid Dani iyo farmaajaba markaa saami qaybsiga awoodda madaxtinimada ee dalka uusan dhaafin dhinacyada mucaaradka waxaa la soo wariyay in maalmihii dambe ay wadeen loolan adag oo markaa ku aadan qorshayaasha culus ay markaa ku wajihi lahaayeen farmaajo iyo waliba Saciid Dani waxa ay u maleegayaan inkastoo la soo wariyay in durbaba arrinkan ay markaa ka dhigan tahay sidii loo wajihi lahaa qaab istaraatiijiyadda ku aadan dagaalka xilligan lagu soo qaaday saami qaybsiga beelaha midowga musharaxiinta ay intooda badan ka soo jeedaan waxaa la soo wariyay inay iyagu markaa ka hortagi doonaan qorshaha ay maleegayaan dhinacyada halka farmaajona markaa laga soo xigtay in arrinkan ugu gol leeyahay sidii mar kale talada dalka ugu soo noqon lahaa isaga oo ballanqaad cajiib ah markaa u sameeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani haddii aan kaa codbato taageer adiga haddii aad iga codbadatana waan ku taageerayaa ayaa laga soo xigtay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa waayadii dambe markaa ka xarig furtay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo la aaminsan yahay inuu markaa kaga gudbay dhiiqo iyo waliba wadda adag oo Puntland marar badan ay markaa ka wajahaysay dhinaca federalismka xogaha xilligan la soo warinayo waxaa qayb ka ah in farmaajo xilligan markaa uu ka cabsi qabo inuu ballanta uga baxo Saciid Dani balse dhagarta uu xilligan markaa isagu dhankiisa maleegayo ayaa waxa ay tahay in markaa uu iska horkeeno Saciid Cabdullaahi Dani iyo xubnaha midowga musharaxiinta oo waayadii dambe cilaaqaadkoodu aanu wanaagsanayn
xubno kale ayaa laga soo xigtay in durbaba ay bilaabeen sidii ay markaa u kala dhantaali lahaayeen awoodaha xilligan ay dhinacyadu markaa isweydaarsanayaan, taas oo ku aadan sidii markaa loo furfuri lahaa tallaabooyinka adag ay markaa ku wajahayaan dhinacyada doorashooyinka Siciid Dani iyo weliba madaxweyne Farmaajo oo la aaminsan yahay in xilligan lacagtii ugu badnayd uu ka helay dhinacyada mucaaradka ee markaa iyagu ku ah dowladda Qatar. waxaa markaa la aaminsan yahay inay durbaba markaa xaalku ay ku xun yihiin dhinaca iyo weliba xubnaha midowga musharaxiinta oo la filaya in lacaga ay ugu yimaadaan dalalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Carabiya ayaa maalmihii dambe markaa iyagu ka cagajiidayay inay markaa quus ka taagan yihiin xubno badan oo midowga musharaxiinta mucaaradka oo ay ka cabsi qabaan haddii ay lacagtu markaa faraha ugu shubaan inaysan doorashada ku soo bixi karayn, oo iyagu xilligan ay og yihiin saadaalinta doorashada iyo halka uu xariga ku furan karo. dhinacyo badan ayaa la soo wariyay in guud ahaanba xilligan ay iyagu markaa wadaan loolan adag oo ku aadan in Farmaajo markaa laga hor istaago u tartamidda doorashada dalka, halka ra'iisul wasaare Roble isna uu xilligan cabsi iyo weliba baqdin badan uu ka qabo haddii uu Farmaajo soo laabto inuu isagu markaa og yahay inuu waayi doono kursigiisa tallaabooyinkii uu qaaday xilligii Farmaajo uu garabka u baahnaa. maalmihii dambe waxaa la soo wariyay in xiriirka madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble uu soo laabanayay dhanka oo uu markaa ka yimid dhinaca ra'iisul wasaaraha, balse Farmaajo oo taatikada iyo siyaasadeedkiisa bedelay ayaa la aaminsan yahay in durbaba dhinacyo badan ay xilligan iyagu wadaan loolan markaa ku aadan arrinta ku saabsan doorashooyinka iyo qaabka loo wajahayo. xaalka ayaa ku xun xilligan dhinacyada mucaaradka marka loo barbardhigo awoodaha ay isbidayaan, balse waxaa markaa la soo wariyay in xarig furka uu noqon doono qaabka Siciid Dani uu markaa uga dhabeeyo hadafka guud ee uu markaa ka leeyahay in saami qaybsiga beelaha ay ka soo wada jeedaan isaga iyo Farmaajo uusan dhaafin talada dalka. ballantaasina ay adag tahay ayay leeyihiin xubno badan oo mucaaradka ka mid ah dhinaca Farmaajo iyo weliba Siciid Dani qaabka ay ugu fuli doonto. xaaladda midowga musharaxiinta iyo labadii madaxweyne ee dalka soo maamulay ayaa la soo wariyay in maalmihii dambe ay si weyna uga tashanayeen shirar ay markaa ku lahaayeen dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, taas oo la aaminsan yahay in qorshayaal culus ay markaa u maleegayaan arrimaha ay ku ballameen Siciid Dani iyo weliba madaxweyne Farmaajo. daawadayaal, waa naga intaa warbixintii gaarka ahayd ee aynu ku eegeynay Farmaajo iyo Siciid Dani oo labaduba markaa u taagan xilka madaxtinimada ee Soomaaliya, isbahaysiga cusub ay samaysteen jabka mucaaradka. intaa ayaan ku soo koobaynaa. wixii warar ah ku soo kordha halkan ayaa toos ah kala socon doontaan. mar kale waxaan idin xusuusinaynaa inaadan naga ilaawin subscribe inaan inoo dhahdaan barteena YouTube ee Galka Media, lana sii wadaagtaan saaxiibadiina kale warbixintan qiimaha badan. mahadsanidin.